aas-aasihii shabaab gudoomiye ku-xigeenkii shabaab asaga afkiiska qiranaya ka fiiriyay googolka ka raadsada Axmed Madoobe ma yaqaan sooyaalka Soomaaliyeed sababtoo ah sooyaalka Soomaaliyeed laguma barto inaad alqaacido soo noqoto inaad argagixiso soo noqoto inaad dad miino u soo dhigto inaad dad kulka ka goyso sooyaalka Soomaaliyeed laguma soo barto sooyaalka Soomaaliyeed waxaa lagu soo bartaa in hooyada iyo aabaha dugsi ku geeyaan iskuul ku geeyaan sooyaal xaqiiqo ah oo rasmi ah ka duldhacdo Jubbaland halkeeda hadda dawladda federaalka ayaa gacanta ku hayso waa la qabanaa Axmedna waa la soo xiraa intii gacan saar leelna waa la soo xiray ku dhashay maanta inta ka dhaxlo argagixiso dhex taagnaa intaas uu dhex taagnaa sooyaal Soomaaliyeed ma yaqaan degmo Soomaaliyeedna ma yaqaan hoggaan Soomaaliyeedna ma ahan waa irtad weeye loo murtad waa irtad waa nin fogaaday kismaayana kama bixi karo dowladda Soomaaliyana insha Allah tacaala gacan bir ay ku qaban doontaa marka la fiiriyo qaabka Madoobe uu ku yimid Jubbaland oo ahayd qaab jabhadeen marka laga tago Madoobe wuxuu sameeyay dirin oo fiiyay dadkii reer Jubbaland way isku yimaadeen maamul la sameeyay baarlamaan la sameeyay golo wasiir la dhisay marka intaas oo dhan ma la sameeyay lama sameeyay Axmed Madoobe wuxuu ka tirsanaa jabhadii raas Kamboni ee ka dagaashay al-Ittixaadkii ka dagaalamay gobolka Gada iyo Itoobiya la dagaalamay markii loogu soo guuleysay 40 nin asoo wada ay wuxuu yimid raas Kamboni oo ku dhowdhowmanay dooman ay u yeeleen group yaro marka joogan uu la xiraay oo masnacad tababar uu taariikhdiisa horta waata hadda markii aas-aasihii shabaab gudoomiye ku-xigeenkii shabaab asaga afkiiska qiranaya ka fiiriyay googolka ka raadsada al-shabaab iyo asaga haddana waxa isku dagaalamay kismaayo anaga maamulayni iyo adeeg lagu dhiibay waa laga ceyrsaday Kenya gale asagoo shabaab meeshaas uu soo xuub siibtay dawladda Kenya wuxuu ka soo dheedhicay shabaab in islaaynayo israacaan saas uu ku yimid صدر سنو مينا قرحيناي قومو Soomaaliya sooyaalkeeda barto madaxweyne noqday ninka la yiraahdo Axmed Madoobe Soomaaliya sooyaalkeeda lagu barto dhiig islaam lagu barto inta koreeyaan ku baran karin asagaan ku baran karin amusi baar ku baran karin Jubbaland, we take note of the recent developments that saw the Jubbaland leader Ogaden opposition figures Jubbaland waxaan ka taxadaraynaa wixii horumar ah ee dhawaantan dhacay kaasoo ahaa in hogaamiyaha Jubbaland iyo mucaaradka ogaadeen ay gaaraan heshiis horseedaya is-aqoonsi iyo wada noolaasho kani waa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madera oo shirkii golaha amniga qaramada midoobay oo toddobaadkii hore ku dhacay hab maqal iyo muuqaal ah oo uu kaga hadlayay arrimo kala duwan waxaana ugu weynaa heshiiskii dowlad goboleedka Jubbaland iyo golihii isbeddeldoonka ee ka dhacay magaalada Nairobi waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu dhaxeeyay hal been taas oo ah markii ugu horeysay ee mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed lagaga hadlo shirka golaha amniga ee qaramada midoobay amusi waa taqaanaa baan u maleynaa intiina qof ah aqoon ma jiro weligii maxamuusi baa meel loogu martiyo muslim u tagay ma maqasheen adeeg gacan ay tago waxaan aad iyo aad mar labaad ugu xunnahay sida uu dhaqmay iyo habdhaqanka midowga Afrika wakiilka u jooga Soomaaliya waxaan marka ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la yidhi hadday wax koro yimaadaan wax hoosaad baa la dhigaa wixii annaga iyo adigaan isku haynay waa waxaan wada leenahay wax hoosaad weyn farigelin koraad timid oo sharafta Soomaaliya dhaawacaysa jawaab ka bixi saad kuwa horeba jawaab ugu bixiseen idinkoo magaca Soomaaliya difaacay jawaab ka bixi idin kale waxay kaa hadlayn doontaa wixii hore aad ugu tilaabsatay oo si kale ummadda Soomaaliyeed aad ugu sharaxday waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliya inay door muhiim ah ka qaataan hawshan sidii loo gaarsiin lahaa meesha ay mudan tahay Francisco Madera wadanka looga saari sidii diblomaasiyadda ku hor oo sameeyay wax ka sahlan waxa uu sameeyay Madera Abishahid wuxuu ka codsaday baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in arintan ay soo fargeliyaan say u fargelinayaan baarlamaanka federaalka raalli uu bakiyahay Madera wuxuu sheegay wax aan sugayno in nasrigaas dadka ummadda Soomaaliyeed jubbooyinka degan ay u yimaado
oo shakhsi u hadlo runta u sheega u yimaado waa waxa kale ay sugayeen baarlamaankana wuxuu ka soo jeedaa badadiis jubbooyinka aniga dadkayga degan beelo badanaa degan digli miriflaa degan diraa degan hawyaa degan cid walbaa degan jareer weynaa degan baarlamaankana intaas uu ka kooban yahay xidig waa qaldan yahay haddii baarlamaanka arxanka soo raadinayo baarlamaanka waa kii aan ku ceyrsaday 2015 beelaha jubbooyinka lagu dulmaayo ayay kasoo wada jeedaan baarlamaanka axmed madoobe kama bixi karo inta ka raaco kismaayo ka baxo meel ka duwan adduunka oo dhan kama tegi karo meel uu tegi kara ma jiro walaa yaxiiqu makruusayi ilaa biyaali baa ku dhacday qofka hadduu ka shaqeeyo dulan iyo qulan iyo bakti hadduu ka shaqeeyo asagaa ku baxay axmed madoobe uu ku baxay xaqirkii uu xaqiray dadka gobolka gada ku nool iyo dadka ku nool gobolka jubbada dhexe iyo dadka ku nool jubbada hoose dadkii xaqirka uu ku sameeyey asagaa maanta ay haysataa kama uu bixi karo meel kismaayo iyo nairobi ka duwan meel uu tegi karana ma jiro wuu baaba'ay dadkii baabi'iyeyna waa dowladda soomaaliya jiritaankiisii iyo inuu qarboofaysto oo dhan bay diiday waxaa leena dowladda soomaaliya allaha ciseeye allaha sharaf u yeelo ugu dambeyn maxay tahay xalka jubbaland maadaama jubbaland xalkeeda hadda dowladda federaalka ayaa gacanta ku hayso waa la qabanaa axmedna waa la soo xiraa intii gacan saar lelena waa la soo xiraa waa wajahaysaa haddaba xadkeenna la soo xiraya marka hore ciidan kadib waxaa weeye talefarihiis waa ka baxaysaa